dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshiyaha dhulka waxa ay horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto ay ka dhashaan rabshado iyo iska hor imaadyo hubeysan. sanadkii tagay dilalkii ugu badnaa ee dhacay Somaliland waxa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray. guud ahaan magaalooyinka Somaliland waxyaabaha ugu badan ee keenay khilaafka iyo rabshadaha waxa kamid ah isku qabsiga lahaanshaha dhulka, taas oo sababta mararka qaarkood in ay dhacaan dilal kala duwan oo ay geystaan dhinacyada ishaya ama ciidamada amniga oo meelaha qaarkood dhexgala. meel kasta oo kamid ah magaalooyinka Somaliland gaar ahaan Hargeysa waxa lagu xayndaabay calaamad ama sees muujinaya inay cidi leedahay. dhibaatooyinka inta badan ka dhaca dhulka ayaa dadyo kala duwan u aanayaan ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay raadinta dhaqaale lacageed, iyagoo u arka in qofka uu dhulku iibsado si uu uga faa'iido. sababtoo ah sanadba sanadka ka dambeeya waxa kordha lacagta lagu kala iibsado dhulka, sida uu qaba Kayse Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. walaal waxa kamid ah dhulkii inay dadku iyagu maamulaan halkii dawladdu ka maamuli lahayd, qiimaha iyagu ay gooyaan halkii ay dawladda dhexe ama dawladda hoose ay ka maamuli lahayd. mushkiladahaasi waxaad arkaysaa dhul balood laba qof laga wada iibinayo oo dadka isku dilayaan. heer wuxuu gaadhay marka ay dhiigu ku daato oo dhulkii maanta heerka uu marayo in la isku dilo, siday doonaan bay ka yeelayaan, qiimaha ay doonaan bay u jarayaan. haddaad eegtid baloodku maanta wuxuu marayaa $25,000, 5 sano ka hor wuxuu ahaa 2,000. dadka dabaqada dhexe ma iibsan karaan. dawladaha hoose magaalooyinka qaarkood iyo gudida ka garnaqista khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa ayaa dadka qaarkood aaminsan yihiin inay qayb ka yihiin khilaafaadka dhulka, sababtoo ah waxaa dhacda in goob kaliya ay sharciyo kala duwan u haystaan dad kala duwan ama aanay sida saxda ah uga garnaqin khilaafyada qaar. Maxamed Cabdi Jaamac waa gudoomiyaha gudida ka garnaqista khilaafka dhulka ee magaalada Hargeysa. waxa uu ka jawaabayaa aragtida ah inay khilaafka qayb ka yihiin. taas maaha suurtagal. anuu maxkamadahana maartay kuma arag iyagoo u xukumay laba dhul u xukumay ma ku arag. tribunalkuna waaba cusub yahay oo kuma arag. mar walbana maxkamadu check and balance bay isku sameeyaan, halka gudiduna lagu sameeyo check and balance way hubiyaan oo maartay haddii gudidu go'aan gaadho go'aankeedu wuxuu yeelaa maxkamadda sare qof loo xukumay. maxkamadda sarena way arkaysaa in laba shay aan meel laga wada xukumi karin. maxkamaduna waxay leeyihiin darajooyin kala duwan. sidaas daraadeed inta badan dadka ayuunbaa ka sheekeeya ee ma jirto laba xukun oo dhaca, laakiin waxaa jirta qof xukunkan ku guulaystay oo xukunka kale waayi kara oo maartay gudida u xukumi karta maxkamad sare jabin karta, maxkamad baa u xukumi karta maxkamad kale u xukumi karta. marka waxa dadku u qaadanaya in laba xukun la soo saaray. dadweynuhu sida ay u muujiyaan lahaanshaha dhulkooda waxay had iyo jeer ku xidhaan seeska ama kaabadaha sida gadaasheeda ka muuqata. khilaafka dhulku sanadkii tagay wuxuu noqday ka ugu badan ee keena dilalka iyo dhimashooyinka ka dhaca Somaliland marka laga yimaado shilalka gaadiidka oo iyagu ka tiro badnaa. taas waxay keentay madaxweynaha Somaliland inuu magacaabo 12 wasaaradood oo uu magacaabay guddi heer qaran ah si xal loogu helo khilaafaadiyada dhulka. khilaafka dhulku kaliya kuma ekaanin magaalooyinka Somaliland, sidoo kale waxa uu gudbay baadiyaha iyadoo la isku qabsado dhul daaqsimeedyada. Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland, waxaana xubin ka tahay guddidaasi uu magacaabay madaxweynuhu. waxa weeyaan dastuurkeena Somaliland qodobkiisa 12 wuxuu sheegayaa dhulku inuu yahay hanti guud oo ummadda ka dhaxaysa inuu yahay. dawladuna ay u xil saaran tahay oo maaragtay laamaha kala duwan ee dawladdu ilaa madaxweynaha inay u xil saaran yihiin. haddana culaysku annagiiba nagu dhacay, culayska ugu weyn annaguna haysta sababta intaa 4 saacadood dhulka la isku eriyay imika waa dhul daaqsimeedkii inaan ka soo saaro oo maaragtay samayno sharci ama policy laga soo saaro lagu dhiqi lahaa dhulka, lagu kala xadayn lahaa dhulka. dhibaatooyinka ay sababaan dhulku ee ka taagan guud ahaan Somaliland ayaa dadka qaarkood xalkooda u arkaan inay dawladdu doorkeeda qaadato. laba arrin buu xal ku muuqda walaal. arrinka ugu horeysa waxa weeyaan in dhulka ganacsiga laga daayo oo ay dawladdu maamusho, in dhulka dan guud loo arko oo aan loo arkin dana shakhsi. Barkhad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.